قبس كالغيث المدرار نقطف من كل الأزهار وبنهج الغر الأطهار نسلك درب العلم ونعمل قبس كالغيث نقطف من كل الأزهار وبنهج الغر. waxaan leenahay mawduuca kale waa mawduuc markaasi culimadu ay wax badan ka soo bandhigtay waana mawduuca aan leenahay ilaahay mar hadduu leeyahay qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fi samaawaati wal ard maanta culimada ugu waaweyn fannigan kama warranta waxaa ka mid ah doctorkan ugu caansan geologiga waxay yidhaahdaan ninka afraad ee geologiga buu ahaan jiray sideetanaadkii iminka dee waaba laga yaabaa inuu sii dhaafay زغلول النجار waxaa ka mid ah sheekh Zandani waxaa ka mid ah culimo badan oo maanta muslimiin oo fanniga kan takhasusaad ka dhigatay oo soo bandhigaysa مثلا مسائل ka cajabta leh ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu kaga waramayaa in muluuxada dhanaanka waxaana isku nooca wax walba ku kala gedisan badaha wax walba ku kala gedisan barzakh baa u dhaxeeya badaha waxa u dhaxeeya baleeyeen biyo labada dhinac midnaba aan la nooc ahayn oo laago u dhaxeeya laakiin mawjadu miyaanay jiidaynin markay mawjadu xagga ka soo dhacdo de intan yar inta qaato miyaanay xag u dareemaya laagan yar kolba dhinacaas uu buu la soconaya dhanka mawjadu socoto luuqaas uu baa u dhaxaynaya isku darsamay maayaan badda kasaafadeedii iyo dhanaankeedii iyo macaankeedii kuwa waxeedii wadata iyo taa kale waxeedii wadata iskuma darsamayaan inta biyo u dhaxaysa luuqa dhanun bay ula gurgureen laakiin meel fadaadoobeysa ma jirto biyo ka talaabaya tan say u qiyaasan bay waagi dambe waxay soo kaxaysteen markab baabul mandabka agtiisa bay keeneen exactly meeshii bay istaageen dabeetana biyaha koob marka dhinaca laga daro markabka iyo marka dhinaca kale markabka laga daro waa laba biyo oo kala nooc ah hal markab oo meel taagan oo badda dhinaca marka laga soo darsaday marka dhinaca laga soo darsado waa laba badood oo kala nooc ah waa bad dhanaanka kulaylka muluuxada density-ga everything uu ka gedisan yahay badda kale labadaba lu'lu'ya marjaanka waa laga saaraya labadaba yani wuxuu quraanku ka waramayay waqtiga bal waxyaabaha cajabta ee culimada qaar ku tilmaamaan waxa kamid ah xayawaanaadka dhan qura laazima dhanka kale xataa uma gudbaan dhankaasna xayawaan nooc gaar ah ku dhaqan oo muluuxada iyo density-ga iyo xaraarada gaarka la dhaqma xaqaana nooc gaar ah ku dhaqan